Wow, ugu dambeyn waa uu fashilmay shirkii lagu dhexdhexaadin lahaa Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowlad goboleedyada Soomaaliya. Gebi ahaantood way iska diideen inay hor fariisaan Xasan Sheekh Maxamuud ilaa iyo inta laga saxayo qaladaadka dowladdiisa ay ku iba furtay. Waxay sheegeen in aysan jirin wax wada hadal ah maadaama ay tirsanayaan dhibaatooyin maamul oo aad u baahsan. waa halbeegga wararka iyo warbixin degdeg ah oo aan ku eegi doonno shirkii Xasan Sheekh iyo madax goboleedyada ee Garowe ka furmi lahaa oo ugu dambeyn fashil uu ku soo dhammaaday. maxay tahay sababta yaase ka diiday maamul goboleedyada inay tagaan Garowe? warbixintan ayaan kugula wadaagaynaa xog iyo macluumaad qarsoon iyo beesha caalamka oo indhaha ku haysa dagaalka siyaasadeed ee Soomaaliya. balse marka hore sii sheergaree muuqaalkan oo leegna saar kuna soo biir boggeedna Facebook ee halbeegga wararka si aad ula socoto xogaha iyo muuqaalada halkan aynu ku baahinno. waa hagaag aynu ku horrayne. ugu dambayn waxaa fashil iyo wejigabax ku soo dhammaaday shirkii la qorsheynayay inuu dhex maro Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowlad goboleedyada. shirka madaxda dowladda federaalka iyo madax goboleedyada ee lagu waday inuu horraanta bishan ka dhaco magaalada Garowe ee caasimadda Puntland ayaa fashilmay sida ay inoo xaqiijiyeen ilo wareedyo loo qaateen ah. xog uu helay halbeegga wararka ayaa sheegaysa in shirkan ay si cad u diideen qaar ka mid a madax goboleedyada xilli ay soo xoogaystay is-aaminaad la'aantii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweyne goboleedyada Soomaaliya. shirkaas oo markii hore qorshuhu ahaa in lagu qabto Muqdisho ayaa loo wareejiyey Garowe kadib markii uu diiday madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen inuu yimaado caasimadda Muqdisho. si kastaba xog cusub oo aan ka helnay madaxtooyada Puntland oo qabanqaabinaysa shirka ayaa sheegaysa in madaxda dowlad goboleedyada badankood ay go'aansadeen inaysan iman shirka meel kasta oo lagu qabto, taasi oo cadaadiska ku kordhinaysa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo in dowladdiisu horumarro kala duwan ay samayso. madaxda dowlad goboleedyada qaarkood oo rumaysan inuu dagaal kaga soo wajahan yahay dhanka billa Soomaaliya ayaa markan si weyn uga hortegaya inay hor fariisaan Xasan Sheekh Maxamuud iyo nidaamkiisa UPD oo ay dagaal siyaasadeed kula jiraan. wararku waxa ay intaas ay ku darayaan in hadda dhammaan dowlad goboleedyada ay hadda hal mowqif ka taagan yihiin khilaafka billa Soomaaliya oo aanay jirin dowlad goboleed heshiis la ah dowladda federaalka ee Soomaaliya. Siciid Dani ayaa ka caraysan in Puntland la dhaafiyey xilka ra'iisul wasaaraha iyo habka loo qaybiyey xilalka wasiirada. Laftagareen wuxuu weli ka ciil qabaa xilkii loo dhiibay Mukhtaar Roobow. Axmed Madoobe ma cadda waxa uu tirsanayo, balse waxay u badan tahay inuu ku xiran yahay Dani. qoorqoor wuxuu rumaysan yahay inuu socdo qorshe kursigiisa loogu diyaarinayo Abshir Buqaari, halka Guudlaawe aan la aqoon waxa uu tirsanayo, balse uu la safan yahay Bahgareen oo isaga qoorqoor iyo Laftagareen ay ka wada siman yihiin dagaalka. shirka Garowe ayuu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud doonayay inuu isaga xalliyo madmadowga kala dhexeeya madaxda maamulada, iyada oo wararku ay sheegayaan in madaxweynaha aanu xilligan diyaar u ahayn khilaaf iyo dagaal siyaasadeed maadaama uu doonayo in si midaysan loo qaado dagaal ka dhan ah kooxda shabaab. si kastaba maamul goboleedyada ayaa u muuqda inay dagaal siyaasadeed u bareereen kadib markii ay 11 Agost qaadeen tallaabo ay xiriirka iyo wada shaqaynta ugu jareen wasaaradda maaliyadda ee federaalka oo ay ku eedeeyeen inay ka baxday heshiisyo horey loo gaaray. Xasan Sheekh markan waxa uu wajahayaa loolankii siyaasadeed ee ugu xoogganaa abid ee dhex mara madaxda Soomaalida. xitaa beesha caalamka indhaha ayay ku haysaa xaalka siyaasadeed ee Soomaaliya iyo halhayskii Xasan Sheekh Maxamuud oo markan dhicisoobaya. daawada fikirkaaga iyo waxa ay kula tahay ku reeb qaybta hoose ee commentiska tan iyo kulan dambe nabadgelyo.